بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي هلكن ودلبيل تي في قodobada aad ku maqli doontaan warkayaga haduu rabdi karaali noqdana waxa qayb ka noqonaya maxay tahay sababta ka dambaysa safarka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ugu ambabaxay boqortooyada Sacuudi Carabiya faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qarax ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho warar dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal ka dhacay gobolka Hiiraan iyo khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi xog maxay tahay sababta ka dambaysa in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu diido inuu kulamo la qaato wafdiga ka socda dawladda Qatar arintaasi lugma ku leedahay Imaaraadka Carabta madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo wada kulamo gaargaar ah uu la leeyahay xubnaha bulshada rayidka daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii ugu door corona warkayaga halkan waa dalbila TV hadaba hadii ay tahay booqashadaadii kuugu horeysay ee aad soo booqato bartan YouTube ee dalbila TV waxayna si naxariis leh kaaga codsanaynaa in subscribe aad noo saarto isla markaana gambaleelka aad furato si mar waliba aad u hesho xogaga wararka iyo warbixinada barnaamijyaadka gaarka ah ee daawaday aan halkan kuugu soo gudbinayno sidaas oo kale wararkii barnaamijyaadkan halkan kuugu soo gudbinayna daawada hadii aad ka hesho asxaabtaada waad u sii share gareyn kartaa si sidaada oo kale ay kaga bogtaan isla markaana ay ugu xirnaadaan halkan dalbila TV alaaba waxaynu idinkugu soo gudbinaa siyaasadihii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya ka jira iyo arrimaha isdiidan ugu horeyn aynu ku bilownay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa wado qorshe ugu ambabaxayo boqortooyada Sacuudi Carabiya ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa la filayaa in maalinta Jimcaha ah ee toddobaadkan uu u dhaafo boqortooyada Sacuudi Carabiya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa tagi doono labada xaram ee shariifeenka ah ee Makka al-Mukarrama iyo Madiinatul Munawwara si uu ugu soo cibaadeysto maalmaha ugu dambeeya ee bisha Ramadaan safarkiisa waxa ku lamaanan kulamo diblomaasiyadeed ee uu la yeelan doono boqortooyada Sacuudi Carabiya safarka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa noqon doono kii saddexaad ee markaasi dibadda ah isla markaana uu ambabaxo tan iyo markii la magacaabay isla markaana loo magacaabay xukuumadda federaalka Soomaaliya 17 Sebtembar ee sanadkii hore 2020 waxa uu horay u booqday dalal ay qayb ka tahay Qatar Kuwait iyo sidaas Qatar iyo Kuwait oo ka wada tirsan golaha iskaashiga ee qaliijka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaana lagu sheegay muhiimadda ugu weyn ee Sacuudi markaas uu ugu ambabaxayo sidaas oo kale inay qayb ka tahay in boqortooyada Sacuudi uu kala hadlo arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo doorashooyinka tan iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble markii baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu khudbad ka horjeediyay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu ku sheegay in arrimaha doorashooyinka iyo amniga uu markaasi ku wareejiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa Roble waxa uu waday dadaalo markaasi uu kaga shaqeynaya nabadeynta Soomaaliya isagoo kulamo gaar ah la qaadanaya xubnaha mucaaradka ee ka soo horjeedo muddo kordhinta iyo sidaas oo kale qof waliba ay qusayso arrimaha Soomaaliya ra'iisul wasaare ayaa Maxamed Xuseen Roble ayaana lagu amaanay dadaalada markaasi uu ku wado samata bixinta siyaasadda Soomaaliya halka ay taagan tahay geesta kalena madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa waxa uu bilaabay in filla Soomaaliya uu ku qaabilo ururada bulshada rayidka madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo madaxtooyada qaranka kulan afur ah kula qaatay qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa tilmaamay in dhibaatooyin kala duwan ee dib u dhigay dalkeena laga gudbi karo hadii wada shaqayn buuxda ay yeeshaan shacabka iyo culimada Soomaaliyeed iyo waliba madaxtooyada warsaxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada ayaa waxa lagu sheegay in madaxweynaha culimada uu ku bogaadiyay doorka wanaagsan ay ka qaateen wacyigelinta iyo sidaas oo kale toosinta bulshada dib u heshiisiinta daminta colaadaha isaga oo ku amaanay kaalinta ay ka qaateen talaabooyinka markaasi dib loogu yareynayo dhibaatooyinkii maalmihii aynu ka soo gudubnay ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho dhankooda culimada ayaa la wadaagay madaxweynaha talooyin ku aadan dawlad dhiska horumarinta dalka iyo la dagaalanka fikirka xagjirka ah iyagoo bogaadiyay tilaabooyinka loo qaaday dawlad wanaagga ilaalinta ammaanka shacabka iyo sidaas oo kale dardargelinta ammaanka
madaxweynaha mudxiliedkiisu dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa culummada ka codsaday inay sii xoojiyaan dadaaladooda ku aadan horumarinta kobcinta wacyiga bulshada ayna hormuud ka noqdaan xasiloonida dalka si markaasi nabad loogu dabaalo. madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa tan iyo markii cadaadis xoogan ay soo saareen mucaaradka islamarkaana ku aadan muddo kordhinta ay u sameeyeen 12 abriil mudanayaasha baarlamaanka ayaa tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyey wax uu la kulmaya cadaadis dhan weliba ah. sidaas oo kale sidii xukuumadda uu ugu wareejiyay ammaanka iyo sidaas oo kale doorashooyinka ayaa wax uu farmaajo waday dadaalo markaasi dib loosugu soo laabanayo iyo wada hadal waan sidii looga gaari lahaa shaqaaqooyinkii u dambeeyay ee maalmihii aynu ka soo gudubnay ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. la taliyayaasha gaarka ah ee fila Soomaaliya xogag aynu ka helayno wax ay xaqiijinayaan in madaxweynaha markaasi ay kula taliyeen in wax waliba uusan xoog ku raadin sidaas oo kalena miiska wada hadalka uu furo xubno ay qayb ka yihiin mucaaradka. talooyinkii ugu horeeyay ayuu madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo bilaabay in uu wada hadal la yeesho bulshada rayidka isla markaasna uu kala hadla arrimaha doorashooyinka siyaasadaha isdiidan ee dalka ka jira iyo sidii markaasi xal waara looga gaari lahaa dagaalada. sidaas oo kale waxaa la rajeynayaa in madaxweynaha kulamo gaar ah uu la qaadan doono qaar ka mid ah saraakiisha militariga ee gadoodsan isla markaana ku sugan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. la taliyayaasha fila Soomaaliya warar aynu ka soo xiganayna ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha uu wado qorshe gaar ah isla markaana uu doonayo in kulamo uu kula qaato qaar ka mid ah saraakiisha mucaaradka isla markaasna uu kala hadli doono arrimo ay qayb ka tahay sidii markaas ay ugu laaban lahaayeen fariisimahooda ay soo banayeen isla markaana magaalada aysan sawirada laga qaaday aysan u noqon kuwa culaad hurinayo. madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa toddobaadadii aynu ka soo gudubnay barakaca ka dhacaya Muqdisho iyo sidaas oo kale dagaaladii ka dhacay waxay noqdeen kuwo lagu eedeeyay. geesta kalena faahfaahin dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal ka dhacay gobolka Hiiraan. waxaynu idiin soo gudbin doonaa khasaaraha rasmiga ee dagaalkaasi. dagaalka oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan una dhaxeeya laba maleeshiya beeleed ayaa waxa uu ka socdaa meel u dhow deegaan lagu magacaabo Haracadaay oo qiyaastii 60 kiiloomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. labada maleeshiya beeleed oo beeraley ah ayaa waxay isku haystaan dhul ku yaala deegaanka isla markaana ay ku dagaalsan yihiin sida dadka deegaanka ay noo xaqiijiyeen. waxa ay maqlayeen daryanka risaas aad u culus isla markaana ay isku adeegsanayeen labada maleeshiya beeleed ee halkaasi ku dagaalamaya. waxaa jira khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhashay dagaalka una dhaxeeya labada maleeshiya beeleed iyadoo labadii maalmood aynu ka soo gudubnay xiisadda dagaalka laga dareemayay deegaanka Haracadaay ee ka tirsan gobolka Hiiraan. ma jirto mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hiiraan oo ka hadlay dagaalkaasi halkaasi ka dhacay waxaana jiray waan ay wadeen odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan si markaasi looga bogsado colaadda halkaasi ka jirtay. sidaas oo kale maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxaa lagu eedeeyay in marnaba uusan ka hadlin xiisadda halkaasi ka taagan isla markaana u dhaxaysa beelaha walaalaha ah ee halkaasi ku wada dagaalamay. dadka deegaanka odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa maamulka gobolkaasi waxa ay eedeyn ugu soo jeediyeen in faraha uu kala baxay isla markaana uusan ka hadlin. sidaas oo kale waxa ay tilmaameen in aysan ahayn wax wanaagsan maamulkii halkaasi ka ariminayay in siyaasadda iyo colaadda halkaasi ka jirta uusan ka hadlin. geesta kalena aynu dib ugu soo laabanna magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. faahfaahin dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan khasaaraha rasmiga ee ka dhashay qarax ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax isla markaana ka dhacay gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. waxaa soo baxaya faahfaahin dheeraad ah oo la xiriira qarax khasaare geystay oo goor dhow ka dhacay xaafad ka tirsan degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. qaraxan ayaa ahaa nuuca miinada dhulka lagu aaso waxaana lagu qarxiyay gaari nuuca loo yaqaan saarifka. waxaa la sheegay inay ku dhinteen 3 ruux oo gaariga saarnaa halka qof dumar ah oo wadada maraysa xilliga uu qarax dhacayana uu markaasi dhaawac ka soo gaaray. ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka degmada ayaa gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay isla markaana sameeyay baaritaano ku aadan qarax
iyagoona halkaasi ka qaaday meydadkii halkaasi ku dhintay. Sidaas oo kale ciidanka goobta soo gaaray ayaa qaraxa kadib halkaasi waxay ka sameeyeen howlgallo baaritaan ah, isla markaana ay ku sheegeen inay ku baadigoobayaan kooxihii qaraxaasi ka dambeeyay. daawadayaal guud ahaana halka ayaan kusoo gabagabeynayaa warkii oo aad kala socoteen Dalbila TV. waad ku mahadsan tahay booqashada iyo la jaanqaadka bartaga YouTube ee Dalbila TV. sidaas oo kale waynu kaaga mahadcelinaynaa in mar waliba aad ku xirnaato barteena YouTube muuqaalada, wararka, warbixinada iyo barnaamijyaadka alaaba halkan aan kugu soo gudbino. asxaabtaada waad u sii share garan kartaa. Dalbila TV alaaba waxaanu idinkugu soo gudbinaa siyaasadihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya, isla markaana isdiidan marxaladaha dalka halka ay marayaan. waad ku mahadsan tahay booqashada bartan YouTube ee Dalbila TV.